barqadi ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinayo barqadi ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinayo gajiyow bakhtiyo basaasto duntisu ka boodyo bulaanye gajiyow bakhtiyo basaasto dantisu ka boodyo bulaanye waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan barwaaqo gaarane السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا سحبت كحيران يوتيوب كنا زيتوني كوليج كسر دوادا فيديو كله يا عشرة ديني تحنها هذا بداود هدية أيتها مركي كوادا صوبة غطي يوتيوب كنا فلنا هالمامين سبسكرايب سادو سدو كله أتكمل الكدارته سيا يكوسو جاران لما عشرة تحنها أنا لكم كسو قد بندونا هدي الله يقدره سدو كله هاي المامين إن أدلا شير جريسو لما أصحابتها باهيدا وقبتها عشرة تحناها أو نوعا وكلا هذا أصحابي وحا إنو السعودية كورسديني في سيسك جبتر كأني أها راديو أكتيفيتي فيديو جيسو كان دمية وحا إنو كسو هذا لي بيريورك تيبل كما إنو كسو هذا لي هذا فيديو كان أما 10 كان لما أنت وحا إنو كغشقين دونا equation baynu qori doonaa equation kaas baanu xalin doonaa haduu ilaahay uu qadaro hadaba equation ka intaan xalin waxaan rabaa hal kelmad inaynu isla fahanno kelmadaas oo la yiraahdo transmutation maxaa la yiraahdaa waa conversion wax la yiraahdaa waa bedelida of one chemical element yani chemical element in loo bedelo to another mid kale in loo bedelo ayaa la yiraahdaa transmutation baa la yiraahdaa sidoo kale marka halkan equationaadka saarna inaan mid aynu uga shaqeyno mid kastaba su'aasheeda aynu qorno kadib aynu fiirino waxa nalaga rabo ama waxana loo diray su'aasheena koowaad waxana la siiyay waxa la yiraahday potassium 42 ayaa waxay sameysay radiation bay samaysay waxa ay soo saarday baa leedahay beta minus bay soo saarday 0 iyo wax aan la garanayn hadaba waxaan rabaa inaynu soo saarno shayga meesha ku qoran ayaa rabnaa inaynu soo saaro potassium aan la siiyay beta minus bay radiation bay samaysay radiation keedana beta minus bay soo saarday hadaba shayga halkaasi yaala ayaan rabnaa inaynu xisaabino hadaba intaan xisaabin aniga shaygaasi waxaan u baxsanayaa maadaama aan aqoonayn x baan u baxsanayaa aniga waxaan u baxsanayaa x adigu waxa rabto u baxso x baan u baxsaday halkaana waxaan ula baxayaa proteinkeeda inuu ila mid yahay m neutronkeeda mass numberkeedana uu ila mid yahay n intaana ula baxay adigu waxaad rabto ula bax xarafkaad rabto isticmaal markii laga reebo xarafka owga ha isticmaalin okay hadaba equation baan haystaa equationka marka halka waxaan haystaa r h s right hand side waxa ay leegtahay l h s ay leegtahay okay hadaba halkan waxaan haystaa 19 marka waxaan leeyahay halkan waxaan haystaa m oo laga jaray hal waxa ay leegtahay baan leeyahay 19 m waxa ay la dhigantaa baan leeyahay 20 korna sidoo kale waxaan leeyahay n baan haystaa halkan 0 baan haystaa halkan 42 baan haystaa waxaan leeyahay n oo lagu daray 0 waxa ay la mid tahay 42 halka waxaan haystaa marka n waxa ay la mid tahay 42 elementigaygi marka waxaan leeyahay x
halkan imisaan haystaa 20 halkan imisaan haystaa 42 haddaba periodic table-keygii baan ku laabanaya waxaan isweydiinayaa muxuu yahay elementiga 20aad ee periodic table-ka waxa ii soo baxaya inay tahay calcium marka waxaan leeyahay elementigaasi waxa uu ila dhigmaa calcium halkana waa 20 halkana waa maxay waa 42 kadibna elementigaygii maanta waa soo helay booskiisa maxaan ku qoranaynaa waxaynu ku qoranaynaa oo lagu daray calcium 20 42 haddaba su'aasha isweydiinta leh waynu ka shaqeynaa hadda xal waynu soo helnay haddaba waxa isweydiinaynaa maxay tahay nooca nuclear reaction-ka la sameeyey marka maxaa laga rabaa waxa laga rabaa waxa la yiraahdo type of nuclear reaction type of nuclear reactions maxay noqonaysaa marka waa beta soo maaha maadaama ay sidaa ay tahay waxaan leenahay waa beta weliba waa maxay beta minus sababta halkaasaan fiirinayaa minus ba ay taala beta minus decay baan leeyahay haddaba su'aasheena koowaad marka waxa weeyaan sidaas ayaynu ku xalinay su'aasheena labaad ee la weydiiyay waxa ayna leedahay waxaan haysanaa elementigan b u 94 halkaana waxaan haystaa 239 waa uu burburay waxa uu soo saaray alfa buu soo saaray alfadaana waa la siiyay 2 4 oo lagu daray elementi aan la aqoon haddaba elementigaasaan rabaa inaynu soo saarno haddaba elementiga aniga waxaan ula baxayaa x maadaama aan aqoonayn unknown maadaama uu yahay proton numberkiisana waxaan ula baxayaa inay leeg tahay m kana waxaan ula baxayaa inay leeg tahay n kadib waxa weeyaan waxaan leeyahay rhs waxa ay leeg tahay lhs kadibna waxaan leeyahay waa m plus 2 oo waxa weeyaan maxay leeg tahay 94 sama kadibna waxa leeyahay m waxa ay la macno tahay 92 haddaba inta aynu xisaabino waxaan leenahay n oo lagu daray 4 waxa ay la mid tahay 239 marka waxaan leeyahay n oo lagu daray 4 waxa ay la macno tahay 239 n waxa ay la macno tahay 239 oo laga jaray 4 235 haddaba elementigaygu marka waxaan leeyahay waa x 235 haddaba halkaa markaa maraayo elementka aniga ma xifdisanay sababtoo ah ilaa secondary ardayga waxaan rabaa inuu xifdisan yahay 20ka wax weeyaan elementi ugu horeeya periodic table-kayga marka haddii aan tago aan soo fiirino marka periodic table-keeni elementigaas elementigee weeye 92 elementiga 92 waa kan macnaheedu waa maxay waa u soo ma jeedo 92 macnaheedu waa maxay waa elementiga la yiraahdo u marka waxaan leenahay elementigaygu periodic table-kan ka soo fiiriyay waa u 92 235 haddaba waxaa laga rabaa type of nuclear reaction nooca uu soo saaray halkaasaan ka fiirinayaa waa maxay alpha decay baan leeyahay maxay samaysay alpha decay taana marka waxa weeyaan asxaabay sidaasi baynu u xisaabinaynaa okay su'aasheena saddexaad ayaan isla fiirino su'aasheena saddexaad waxa ayna leedahay u 92 235 waa ay burburdhay baa leenahay waxa ay soo saadhay helium 4 oo lagu daray shay aan la garanayn haddaba shaygaasaan rabaa inaynu soo xisaabino aniga maadaama aan aqoonin waxaan ula baxayaa halka x proton number is equal baa leeyahay m mass numberkuna waxa uu leeg tahay n
marka waxaan leeyahay m oo lagu daray 2 waxaan leeyahay r h s waxay leegtahay l h s okay m oo lagu daray 2 waxay leegtahay baan leeyahay 92 m waxay leegtahay baan leeyahay 9 sidoo kale waxaan leeyahay n oo lagu daray 4 waxay la macno tahay 235 n waxay la macno tahay 231 elementiga marka waxa la yiraahdaa halkan waxaan haystaa 9 halkan waxaan haystaa 231 hadaba elementiga ama naqaana elementigaas ma yahay maadaama aan aqoon periodic table kayga baan ka soo fiirsanayaa periodic table kayga 9 waxa leedahay waa th okay elementiga marka waa maxay elementiga marka waxa weeyaan marka aan ku qorto iga tirtir th halkan waxa leenahay waa 9 type of nuclear reaction is kuna waa maxay waan u jeedaa isna waa maxay waa alpha weeyaan kana wax weeyaan sida baynu xisaabinayna okay su'aasheena afaraad iyadana waxayna leedahay sida tan afar waxaan leedahay h11 oo lagu daray h13 waxay la macno tahay baa la yiri waxaan la garanay okay su'aasha noocan la weydiiyay su'aasha noocan marka wax weeyaan fiiri waxaan leeyahay r h s waxay leegtahay l h s halka x halkaana m n marka waxa leeyahay m miyaan garanayaa halka wax kale ma yaalin m waxay la macno tahay hal oo lagu daray hal m waxay la dhigantaa baan leeyahay 2 okay n waxay la dhigantaa baan leeyahay 3 oo lagu daray 1 3 oo lagu daray 1 n waxay la macno tahay 4 marka macnaheedu waa x m taydu waxa la yiraahdaa waa 2 halkaana waa 4 elementiga labaad ee periodic table-ka waan xifdsanahay wax weeyaan waa helium macnaheedu waa 2 iyo 4 hadaba su'aasha isweydiinta la wax weeyaan waxaad sheegtaa elementiga kani nooca reaction uu sameeyay yani maanta alpha ma dhihi karaa maya alpha waxaan dhihi karaa markii alpha ay wax weelisa fiiri alpha helium oo lagu daray wax kale laakiin helium kaliya shayga kani macnaheedu waa maxay shayga kani waxa uu sameeyay wax la yiraahdo transmutation oo laga wado shayga kani waxa uu iska bedelay from one form to another form hydrogen baan haystay hydrogen taydii baan isku cadaadiyay waxa iga soo baxay wax weeyaan helium baa iga soo baxay marka tan waxa la yiraahdaa transmutation koormaad leedahay waa hadii shaygu uusan wax radiation form uu soo saaro sida alpha beta gamma waxyaalaha haduu soo saarin sidaasi wax weeyaan bayno ula dhaqmeynaa okay su'aasheena shanaad waxa haystaa lithium 3 baa waxa lagu daray baa la dhahay 0 1 waxa ay soo saaray 2 4 oo lagu daray waxaan garanay hadaba kan markaan rabo equation ta inaynu xalino halka x baan ula baxaynaa sida caadadeena halkaana m n waxaan leeyahay r h s waxa ay leegtahay l h s baan leeyahay halka marka maxaan haystaa m halkaana waa plus marka waxa leeyahay m oo lagu daray 2 waxa ay leegtahay isku dar eber oo lagu daray 3 m oo lagu daray 2 waxa ay leegtahay 3 m na waxa ay leegtahay baan leeyahay 1 bele inta aan xisaabino n oo lagu daray 4 waxa ay leegtahay hal oo lagu daray 6 hal oo lagu daray 6 n oo lagu daray 4 waxa ay leegtahay baan leeyahay 7 n na waxa ay leegtahay 3 hadaba elementigan x halka waxaan haystaa 1 halkaana waxaan haystaa 3 baan haystaa hadaba waxa isweydiin waxa ay sheegtaa elementiga noocan oo kala ah elementiga koowaad ee periodic table waa maxay waa hydrogen macnaheedu waxa weeyaan
waa H1 3 elementiga halkaasi marka kaas weeyaan elementiga noocana marka waxa la yiraahdaa kaas weeyaan hadaba nooca decay uu sameeyana waa maxay fiiri muxuu soo saaray alpha buu soo saaray waxa laga yaabaa inaad dhahdo halkan neutron buu soo saaray maya neutronku ma aha markasta adiga output-ka fiirinaysa shayga kana wuxuu soo saaray output-kaaga adiga waxa weeyaan markasta ku maamulanaya okay su'aashana lixaad iyadana waxa ay leedahay aluminium 13 27 baa waxa lagu daray helium 2 4 B 15 7 hadaba noocan la su'aashana la weydiiyay su'aashana marka elementiga baa aqaan x baalay halkaana m halkaana n marka waxa leeyahay RHS right hand side is always is equal LHS kadina waxa leeyahay m oo lagu daray 15 waxa ay la dhigantaa 2 oo lagu daray 13 m-na waxa ay la dhigataa baa leeyahay eber n oo lagu daray 30 waxa ay la dhigantaa 27 oo lagu daray 4 n-na waxa ay la dhigantaa 1 elementiga marka aan qoro elementiga marka waxa kaas waxaan haystaa m-taydu wax weeyaan waa eber halkaana waa 1 hadaba waxa is weydiinayaa waxa ay sheegtaa astaanta noocan ayaa lahaa astaanta noocana waxaan ku naqaanay wax weeyaan neutron oo decaygiisa maxaynu soo sheegnay wuxuu ahaa n halkaasina wax weeyaan waa 0 1 halka marka waxa weeyaan elementiga ama shayga ka maqan waa radiation oo ah n 0 hal hadaba nooca uu soo saarana waa ujeedaa waa maxay waa neutron decay weeyaan neutron decay weeyaan iska ilaali markasta adiga waxa xisaabsanaysaa wax la yiraahdo output-ka okay inta waxa rajaynayna isla fahanay su'aasheena toddobaad aan isla fiirino iyadana waxa ina leedahay b e 4 9 oo lagu daray 1 1 waxay soo saaraysaa waxa la aqoon oo lagu daray hadaba marka su'aashan waxa raba hadaba daawad adigu su'aasha isku day su'aashaasi waxa lagu leeyahay waxa soo saadhaa wax weeyaan x qiimaha halka no sheeg sidoo kale waxa sheegtaa wax weeyaan type of radiation type of nuclear reaction iska يعني ما ألفا ما بيتا ما جاما ما ترانسميشن با هذه نوع أي تهاي هذه قال لها ربا بس إيش إسكو داي كدينا واحد ويان جوابته طيب تكومنتيجا إنه قريب إذا سو حرجينا إنه نسلا فهني هذا بس حابي سؤاله نوع عسى اللي جوي دينا يا قاب كاسى اللي جوي دينا يا هنا هالمامن إن واحد ويان سؤال شاء عن كودر واحد ويان إن طيب تكومنتيجا إنه قريبته transportation waa taa wax la yiraahdaa one chemical element into another ayaa la dhahaa okay hadaba asxaab cashirkeena maanta intaasaan ku soo gabagabeynayna intaynu ku kulmi doono fiidiyowan keena xiga oo aynu ka hadli doono radioactivity-ga iyo shayga radioactivity-ga sameynaya astaamaha uu leeyahay waa anagoo isku duuban oo idin leh isma dhaafno fi amaanillah